waxaa la daahroogay sawiradii ugu dhawaa uguna waadixsanaa abid oo laga qaado wejiga Neil Armstrong markii uu ku sugnaa Dayaxa dushiisa. Sawiradan waxaa soo bandhigay sawiraaga reer Ingiriis ee Hawi. Sawiradan waxaa faafiyay Andy Sandros oo 45 sano jir ah, waxaana la qaaday wax yarun kadib markii cirbixiyeenku Dayaxa dushiisa uu istaagay. waa sida ay qortay jariirada Daily Mail ee ka soo baxda waddanka Ingiriiska. Sandros sawirada waxa uu daahroogay markii uu arkay in Armstrong in muddo uu istaagnaa Dayaxa dushiisa isagoo aan isdhaqaajin. Sawiraaga waxa uu isticmaalay qalabka lagu wanaajiyo sawirada oo ay haystaan culimada cirbixiyeenada NASA, arrintaasi oo suurta gelisay in Armstrong sawiradiisu uu si cajiib ah u soo muuqdo. Sawiradan la daahroogay ayaa waxa ay ku soo beegmeen xilli ay NASA u dabaaldegtay 50 sano guuradii ka soo wareegtay xilligii dayax gacmeedka Apollo 11 uu gaaray dayax gacmeedka dushiisa. Dunida waxaa looga dabaaldegay bishan sanadguuradii 50aad ee ka soo wareegatay markii ugu horeysay ee aadanaha uu degay Dayaxa dushiisa, arrintaasi oo ahayd tallaabo taariikhi ah oo casrigan aynu joogno horay loo qaaday. Dalmar Cabduqaadir.